xildhibaan Idris Abdi Takhtar oo kumada xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo aan la ku dooraday deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo basuuqyada ka siibin usan ku harmay inta baahida biilaan ay ku jirtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay aad nasiib darre inta sanad walba ku dhigay biilaan tan amale waana boqolaal bulshada reer koonfur galbeed ay barakacaan baahidan biilaan ay ku jirtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya iyo bay'aata sanad walba wajahaasa bulshada ka nool ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaanka oo basuuqyada usan ku harmay inta sun gurmada doona waana garab uu ku sii doona baahida biilaan ay ka jirtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya saasoo kale soo sheegay inta maalinta bari ay bilowdo doonto gurmadkii biyo aniga shakhsiyan iyo maxaa wasiiradda iyo hadda waxaan rabnaa inaan ka hadalno biyo la'aanta jirta magaalada Baydhabo waxaan rabnaa inaan bilaawno mashruucii biyo dhaaminta ahaa waxaan xamar ugu imid waxa waaye inaan biyo dhaamintaas bilaawo say ugu daysadaan dadka kale ama ganacsatada ama dadka maalqabeenta ama xataa mas'uuliyiinta oo maxaa ugu weyn yahay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicaziz Lafti Garan asagana qayb ka qaadan doona waa ka soo wada hadalnay in biyo dhaamin la bilaawo maalinta berita oo dhammaan meelaha aan biyaha jirin tan kale waxaan u sheegaynaa xillidan markii la gaaro waxa jira ceelal la iska xirto dadka ay leeyihiin biyaha naga dhamaanay biyaha ma dhamaanayaan almaa min nicmatullah wa ilaaha keenay rooban sugoyna waxa la rabaa dadka in loo fasaxo waxa maqalnay in meelo badan ceelal la xiray si maxaa loo gato booyda oo aysan biyaha ka dhamaanin taasna waxa u xil saaran maxaa maamulka gobol degmo laakiin annaga waxaan rabnaa sidii hadda koor aan ugu gurmanay waqti kasta sanad kasta waa ugu gurmanayaan waxaan ka soo bilaabay 92 abaartii oo ilaa 2011 maxaa 2007 baan Idris Abdi Takhtar iyo Subaagan diray dhammaan madaxda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay madaxdan ka soo saaraytay dawladda federaalka Soomaaliya inta biyo la'aanta ay ku jirtay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya lagu garabsi dadka hay'ad biyo la'aanta Ibrahim Macalimow TV-ga caalamiga dawlad goboleedka koonfur galbeed magaalada Baydhabo.